annagu waxaanu kaga duwanaan karnaa waxa weeye inaan si dhab ah runtii u raadino in Soomaalidu wada hadasho si dhabana u wada hadasho ayada oo mar walba lagu dadaalayo oo wada hadalka uu garab soconayo in la isu garaabo iyo in waxyaabaha la tabanayay arinta waan go'ay iskama imaan sababa jiray mashaakilaadkaas in la address gareeyo oo si dhab ah loo wada hadlo oo walaaltinimo halnimo taas waa mid labaad waxa loo baahan yahay wax alla wixii dawladda federaalka la jira adeeg ah dhaqaale ah wax la wada lahaa dhinacan soo jira waa in la wada yeeshaa oo dadku ay ka wada dhaxeeyaan oo dadka wixii isugu jiray ay isugu jiraan siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa jira waxyaabo kale oo fara badan oo la wadaago marka in waxaas la wadaagayo in si ahalnimo oo walaaltinimo loo wadaago oo dawladda federaalka ay ka shaqeyso in waxyaabaha u baahan fududeynta kaga xiran walaalaheena reer waqooyi in si degdeg mar walba loo fududeeyo taasna waa ka shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo hadda marka waa 31 sano oo Somaliland gaar u taagneed dooda Somaliland mar walbaana ay ku celcelinaysay arinta wada hadallada ay ah dad reer waqooyi ah ama deegaanada Somaliland ka soo jeedahay inaysan qayb ka noqon dadka metelaya dhinaca Soomaaliya arinka wax miyaad ka bedeli doontaan anigu wax ka weyn baan arrimahaas fiirinayaa oo ah in kalsooni la abuuro arrimaha ayaa ka qayb galayaan waa farsamo marka farsamo inaan aad la isugu daalin baan anigu qabaa waxa muhiimka waxay tahay dadka walaalaha in kalsooni la dhiso kalsoonidaas iyadoo laga duulaya marka in wada tashi laga gaaro sida wax looga qayb galayo iyo cidda ka qayb galaysa waa farsamo dagaal bay ka imanaysaa mudane khilaafka waxaad soo hadal qaaday Soomaalida dhexdeeda iyo saameynta uu ku yeelan karayo howlaha iyo higsiga dawladda horeyna dawladii hore ugu yeeshay sunno dabiici ah oo taariikhda dhow laga bartayna waxa asal u ahayd khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo marar badan iyo madaxweynayaashii u dambeeyay oo dhan iyo ra'iisul wasaarayaashii u dambeeyay soo dhex maray arinka dabcan adiga madaxweynuhu dad hore isu yaqaanay baad heedeen hore u soo wada shaqeeyay walaac ma kugu haysaa ما ولا معايو لأنه بشر بانهاي بني آدم بانهاي واسخلافي كرنا عرقتية كلا دوان وحيابها قاركود وكم موقن كران لكن وحان رجيني إن يسمرنا قارين إن أرنداس أي خلاف وين يسوب الدوشو أما أي عقبات كنا قطو دولة النمو الصومالي هدي أي بعد عضينا هيراركي دعي جراي قارتو سيدا كولاتها سيدا وقوها بون الله حالي كاري لهاي ما في إني قاري سبا يعني مدحوينو هدي أن عرقتي كلا دوانانو معينة وحان هلينا وباينا هلينو فرسمو أن كحلسنا عنه وأيضا أن meel wax bala laadin ka waran marka xiriirka xukuumadda iyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo aynu ognahay baa hadda dawladda u dambeysay hadaynu tusaale u soo qaadano in dawlad goboleedyada xiriirka kala dhaxeeya qaarkood aysan wanaagsaneyn annagu waxaan qaadanay oo wadanaa mabda leeyahay Soomaali heshiis marka laga hadlayo Soomaali waa heshiis waxa waa siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan madaxda dawladda xubnaha dawladda federaalka iyo madaxda dawladda federaalka waa ka shaqeynayna hadii ilaahay yiraahdo inaan wax khilaaf dhicin sidee baa isku wadka loo gaarayaa waxa muhiimka ah waxay tahay waxa lagu gaaray runtii in la wada hadlo wixii waa la wada leeyahay cid walba waxa ay ayada khuseeya ayada iska leh wixii la wada leeyahayna wada tashi ayaa iyo midnimo ayaa lagu gaaraya taasa muhiim ah waxna waa la kala leeyahay waxna waa la isku leeyahay sidii suuq sheegayba marka cid waliba waxay leedahay ayada leh waana lagu ixtiraamayaa mudane ra'iisul wasaare gobolka laga soo doortay ee Jubbaland aad baarlamaanka ugu fadhiday khilaaf baa jiray muddo soo taagnaa xogogaalna aad u ahayd arrinkaas sidee u abaari doontaa adiga shakhsiyan oo si shakhsiyan ugu quseeya أنا الشخص ما خصيه أنا برايم مينستر الصومالي أنا رئيس الوزراء الصومالي أنا هاي وحاي خصيص جبلان وحاي خصيص هيلشابيلا وحاي خصيص قلمدود وحاي خصيص محاول كلها الصومالي وضمن ذلك استوجب تاعي خصيه وحكسته أو خلافه أو جرا كومدا أنا قاعدين أيه مدحوين حسن الشيخ محمود ومدحوينها كي هاي بيس كي أو حاوة صومالي هشيسة marka waa in la heshiiyaa waa in dadka degmada dhexdeeda ama tuulada jooga ay heshiiyaan kuwa degmadu waa inay heshiiyaan kuwa gobolku waa inay heshiiyaan kuwa dawladda Soomaaliyeed guudna waa inay heshiiyaan marka dawladdu waxa ay ka shaqeynaysaa waa heshiis iyo dadka Soomaaliyeed in la isku dumo dadka Soomaaliyeed in la isu calooshooda la isu furo burcad la isu mariyo ay Soomaaliyeed yaan ka shaqeyn doonaa hadii la
ahmiyad iyo hortabin intee leeg ayay idin leedahay markaa arrinka Jubbaland waxay la mid tahay gobolada kale ee laga yaabo inuu wuxuu midnimo ka jira dadkeena waxaan hortabinna dib u heshiisiinta iyo Soomaaliya heshiisii hortabin bay noo tahay saan ku sheegay cadow lama diriiri karo nabadgelyo lama sugi karo abaaraha wax badan lagama qaban karo dastuur lama dhammayn karo doorasho xor ah oo qof iyo cod lama gaari karo dhaqaalaha laguma kobcin karo haddii aan heshiis jirin oo Soomaaliya heshiin marka heshiisku hortabin buu leeyahay talaabo kastoo la qaadayo waxa ka horeeya dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan